وأحياك وجدان سدا محريست درن gabadhan loola dhaqmaya gabadhan waxa laga daadiyay cuntada ay cunaysay cunugta yareed ayaa ka daadisay waxayna marka ay ka daadisay gabadhan waxay sameysay iyadoon waxba aysan ku dhufanin ayay waxay ka taabatay kaliya wajiga kadib gabadhi waa carartay hooyadeed ayay u soo sheegtay waa u jeedaa sida gabadhi loo galaayo way dishay kadibna cunugta yareed way ku isfooteynaysaa waa qaybtii saddexaad oo aan soo gudbinayno eeda arxan laayo infaanta إذا والله واي adooga waa kana wuxuu kala og yahay haba yaraatee ma jirto wuxuu mar walba u janjeeraa dhanka iyo habarta gabadhiisa dhibaatada ay ku sugan tahay dhan ma ka warqaba kaliya waxa kaliya oo hal dhig ayuu wax ku maqlaa halkaas dhig oo waxa ku maqlaayo kaliina waxa waaye dhigta xaaskiisa waxa alaala waxa uu sheegto uu iska aaminaya like sorry waa ka xumaay qofka deesan hooyo u joogin ama waxaan maqli jiray ku sheekay ka sheekay amal waa sidaan oo kale ah eedada markii ay aragto odayga sidaan ay iska dhigaysaa qof wanaagsan marka kalena waxay u dhaqmaysaa si bini'aadanimo ka baxsan oo naxariis aan lahayn sida ugu shaqaysanayso waa u jeedaan ya eeda arxalaay sorry waa ka xumahay wallahi waa qaybta saddexaad insha Allah waxaan soo gudbin doonaa qaybta afraad la socda hadwa la idmo waxaan gabadhii waa lagu shaqaysanayaa oo waa u jeedaan sida ula dhaqmaysa sida naxariis daran ayay ula dhaqmaysaa arag qadar yeesh sorry waakan odaygii dhowr mar uu shakiyay oo arkay dhaqan xumada ay eedada ay ku dhaqmayso oo arkay laakiin se talaabo wali ma uusan qaadin odayga okay